kelmad bay igu yiraahdeen aad aan uga sii xumaaday runtii waxay igu yiraahdeen waan ku garanaynaa waliba heesahaagana aad baan loo jecel iyo fankaaga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركور وان السلام دمان أصحاب شرفت لي كوحران جيران كيغا واني وعبد البراهيم iyo فيديو cusub fadlan ku xasuusiya dayta markuu gooraysa channelka soo booqatay subscribe saar video wana like saar comment ka soo bixi aad u maasantiin dhamaantiin meel kasta joogtaan. hadaba maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo jidid loo geystay fanaan caan oo taqaanaan oo aad taageertaan. fanaankaasina waa Qamar Suugaani. ruuxantii fanaankan wuxuu kamid yahay fanaaniinta Soomaalida kuwa aan taageerayo kamid yahay idinkuna laga yaabaa inaad badankiinu taageertaan. hadaba fanaankan ayaa sabab la'aan lagu jirdilay Hargeysa isagoo ka soo baxay ka adeeganay ka soo baxay oo ka hadaba muuqaalka niga hor dhici maayo ay isla daawano mana rabo inaan iga soo dhaxgalo muuqaalka marka uu dhamaado ayaan ra'yi ka dhiibanaya. ruuxantiina waana ka xumahay jirdilka loo geystay fanaankan. okay ila daawo. bismillahir rahmaanir rahiim. dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waan salaamayaa. dad badan baa su'aalo iga soo weydiinaya caawa arrinta igu dhacday oon rabaa inaan si fiican ugu faahfaahiyo. waxaan marayay hotelka Star ama xaafadda Calaamada horteeda aan maraya ayaa dukaan baan ka soo baxay oo markaa ka adeegtay. dukaankii markaan saa uga soo baxay waxay la kulantay qabtan oo ciidan yaacaya ayaa walaal maxaa dhacay baan ku yiri jira adigu muran yar kadib waxay ii sheegeen ma jiraan warqad ama dacwad ku socota warqad ay sidaan oo ay ugu soo dacweeyeen saycidi ama dibaan sameeyay ii sheegeen already adigu gacan baa la igu bilaabay ilaa dhowr iyo 10 askari ayaa gacan ay qaaday nabarrada ii geystay. ma goobtii bay kugu dileen marka ay ka heleen mise saldhig baa loo geeyay? goobtu waa wadada dhexdeeda la igu garaacaya gaari baa la isaaray ilaa intaan gaariga sii saarnaa nabarrada igu dhacay. maxay ahaydey sidaasay u dhacday. saldhigii baa la igeeyey wax dambi oo la igu haysta la iima sheegin warqad la iga soo gudbiyay lama sheegin. saldhig waa kee loo geeyay? saldhiga qurac dheer baa la igeeyey oo bima laga qoray markii saldhiga loo geeyay xataa la iga qoray ma jiro waxaasan kugu haysanaa layma oran dibadun baa la iso saaro la iso tuuray. haddana saldhiga gudihiisa jirdil miyaa lagu geystay? nabarro way igu dhacayeen intaan sii socday ilaa markii la qaaday. wax hadal ma istiraadeen nimankii meesha haystay nimankii kelmad bay igu yiraahdeen aad aan uga sii xumaaday runtii waxay igu yiraahdeen waan ku garanaynaa waliba heesahaagana aad baan loo jecel iyo fankaaga. laakiin waxa iga yaabay qof ciidankayga oo booliska oo waliba ay garanayo oo waliba heesahaaga waan xiiseeyaa ilaa sababta igu geystay nabar ama igu dilay baa iga sii qiilisay runtii. وسؤال la iska noqon doono waxaan ka codsanaya anigoo qoray ma iska fikirayo waxa jira 100,000 oo qof oo nabarrada aniga igu dhaca habeen walba ay ku dhacaan iyagoo kiisiyo dambi geysan. waxaan ka codsanayaa ciidanka booliska insha Allah mar dambe inaan qof aan dambi geysan aan nabar ku dhicin. war la iska noqon doono dawladda waa xadgudubka iyo tacadiga ka socda gudaha dawladda iyo magaalada gudaheeda waxa jirdil loo geystay qof celebrity oo magac leh oo la garanayo waliba isagoo garanaya dambi la'aan lagu jirdilay. waad u jeedaan ninkan nabarrada ku yaala wajigiisa jirkiisa inta kale nabarrada ku yaala ka badan dhowr iyo 10 askari saldhiga qurac dheer ka tirsan ee magaalada Hargeysa. muuqaalkaygaas cidii kasta oo soo gaara waa inay sii share garaysaa waa in la faafiyaa muuqaalka waa in jawaab degdegana sida ugu dhaqsaha badan laga soo dhiibaa. ruuxantii waa wax laga xumaado fanaan caana oo dukaan ka soo baxay oo magaaladiisa jooga inta la soo qabto wada dhexdeeda lagu jirdilo. ruuxantii wax laga xumaado soo inoo sheegay wuxuu yiri waxaan ka soo baxay dukaan aan ka soo adeegtay kabacdi anoo kan ka maray oo ka soo baxay ayaa wada dhexdeeda askari u yimaadeen kabacdi intay qabteen anoo hadal oo warqad aan dambi aan geystay aan la marka isagoo waxa aan la tusin oo warqad iyo waxa aan loola imaan ayaa iska qabtay waa iska jirdilay kabacdi gaaro lagu qaatay jeel baa la geeyay. ruuxantii waxaas wax laga xumaado tacadiyadaasina way dhacaan badanaa way dhacaan wayna soo noqdaan sababtoo ah dhowr bilood ka hor xalfad ay qabsanayeen xidigaha geeska ay Hargeysa laftigeeda ku qabsanayeen hotel bay kreesteen xalfadii adigu iyadoo sikimo yar uga arsantahay inay bilowdaan ayay askari yimaadeen wayna camaalaqeen wayna ka xireen hotelkii baxana waa lagu yiri. marka waxaan wax soo noqda ka daranta Qamar Suugaani waxa u dheer in la jirdilo oo wada dhexdeeda lagu dilo kabacdi jeel la geeyo oo asaga wax dambiyan lagu haysan hadhowtana la iska soo saaro. anigu ruuxantii horta fanaankan san hore inuu soo sheegana wuxuu ka mid yahay fanaaniinta Soomaalida kuwan taageero laga yaabo dad badan ku daawanayaan inaad taageertaan fanaankan. marka run ahaantii walaa anu waa la yaabay sida loo jirdilay
ha ugu darnaado nabar isha lagaga ruftay aan u malayno inuu feer yahay oo isha barbaa yara casaaday. Marka intaas ay caawa soo saartay ama rabay inaan ka hadlo aad iyo aad u mahadsantiin dhamaantiin meel kasta joogtaan. channelkana subscribe saar, videogana like saar, comment ka soo bixi, fikradaadana ka dhiibo. insha Allah waxaynu balanaa muuqaalka xiga. See you next video. No le temo al enemigo que me roba, me cuido del falso amigo que me abraza, porque tú le abres la puerta de tu casa, con tu progreso y ya lo rebasa. Pa' que tu amigo te tire los gatos cueros, es que los panas son traicioneros.